بربرتي لصوحلي ترتلوق باقي برشيا خيرقي دوما بلابو سركعا صعب دنك اي عيارها كوحدة كلاب براغ اي بي اس جي ايا كلمي شان اي هل وحا كوبادس بي اس جي جلاسترا اي ريال ايا كلمي ريال ايا سدرقا اوغو فكت جلاسترا اولمبياكوس اي باير مونيج 3-2 بايرا ku adkaatay sidoo kale Tottenham iyo kooxda kale Ferris lagu magacaabo 5-0 Tottenham ayaa ku badisay Manchester City waxa ay ku joogsatay ay ku baashaashi kooxda reer Talyaani ee lagu magacaabo Atlanta halka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid iyo Bayer Leverkusen ay badis kooxda Atletico Madrid 1-0 sidoo kale Genk kooxda lagu magacaabo Liverpool ayaa ciyaaray xal Liverpool way baashaashiyo raaxaysatay 5-1 ay ku badisay Liverpool Salzburg iyo SS Napoli waxa badisay Napoli oo 3-2 ku badisay Inter Milan iyo Borussia Dortmund Inter ayaa ku badisay 1-0 dhanka kale kooxda Barca ayaa kooxda Salzburg lagu magacaabo 1-2 aga adkaatay Chelsea iyo kooxda Ajax Amsterdam ayaa kulmay Chelsea ayaa ku badisay 1-0 Lille iyo Valencia waxa ay ku kala baxeen barbara min hal gool ah markani wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo wixii wakaaladaha caalamka ay ka qoreen ciyaaraha wargeys lagu magacaabo FIFA ee ka soo baxa ariga dalkaasi Talyaaniga ayaa lagu soo waramaya in uu diiwaan geliyay xidigaha u tartamaya abaalmarinta toddobaadka ee UEFA Champions League kadib markii la ciyaaray toddobaadkii saddexaad xidigahaasi ayaa ah 4 xidig kuwaas oo iskugu jira kuwa min 2 gool dhaliyay iyo kuwa 3 gool dhaliyay haddaba xidigaha waxay kala yihiin Cristiano Ronaldo oo wadanka Portugal ka soo jeeda una ciyaar kooxda Juventus waxa ku xigo xidiga reer England ee Alexis Oxlade-Chamberlain Liverpool ayuu u ciyaaraa sidoo kale xidiga reer Faransa Kylian Mbappé ayaa saddexaad ah Raheem Sterling oo asagana ah xidig ka soo jeeda dalkaasi England ayaa u sharxan abaalmarintaasi wargeys lagu magacaabo Mundo Deportivo ayaa lagu soo waramaya in uu shaaca ka qaaday in Barca ay xiiseynayso soo laabashada Philippe Coutinho laakiin Coutinho ayaa lagu soo waramaya in uu xiiseynayo garoonka Anfield oo ay ku ciyaarto naadiga Liverpool xidigaasi ayay Barca ku fasaxi kartaa aduun lacageed oo dhan 142 milyan ugu dambeyntii kooxda Manchester United ayaa dalab dhan 120 milyan ka gudbinayso laacibka kooxda kubadda cagta ee SS Napoli ee reer Africa Claudio Koulibaly xidigaas ayay danaynaysaa in ay ku xoojiso saf ciyaareedkeeda soo saara barnaamijka waa Jibril Joker waxaan naga daawanaysaa barta Facebook aynu ku leenahay Jibril Joker Atoosh ayaa idin waramayay waa mar kale iyo maanta iyo dunida fadlan ha iloobin like share comment mahadsanidin بربرتي لصوحلي ترتلوق باقي برشيا خيرقي دوما بلابو سركعا صعب